dhowaan go'aamo ay soo saareen guddiga ka hortagga iyo u diyaargarowga xanuunka COVID-19 ee Somaliland ayaa waxaa ka mid ahaa in muddo 4 toddobaad lagu tukado guryaha. Arrinkaasina waxaa ka jawaabay Sheekh Maxamed Cumar Dirir oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaalida. baraarujintu waxa weeye ku saabsan tahay su'aalo labadii maalmood u dambeeyay nagu soo noqnoqonayay haddaan nahay imaamiyada masaajidada oo markaa dadweynuhu xoogaa buuqa ay ka sameeyeen taasoo ahayd masaajidada miyaana laga xidhayaa oo idinkiina fatwa bixiseen xukuumaddiina ama guddidiina waxay iclaamisteen masaajidadii la qufulayo. dadkaasi waa dadkii jeclaa masaajidada iyo inay ku cibaadaystaan oo runtii aynu mahadnaqayno abateedka u leeyihiin cibaadada. marka taasi waxay runtii ku habboonaatay in wax laga yidhaahdo. waxay markaa dadku daliishanayaan ama ay ku sababeynayaan 3 arrimood. ta u horeysa weeyaan waxay leeyihiin dhib weyn oo imika taagan oo aynu masaajidada u xidhnaa ma jiro. waxa la sheegay waa wax iska kooban oo waliba guddidu ay sheegtay inaanay waxoodu khatar ahayn xanuunkoodu. marka heer aynu masjidka albaabada isugu dhufanna ma joogno. waxa labaadoo dadku ay dariishanayaan inagu si baynu uga duwannahay caalamkan dadka xareeyey oo dadkeenna 80% suuqay ku nool yihiin oo maalintii qaraabkooda iyo qadadooda ay u doontaan oo intooda badan guryahaba kuma noqdaan. sidaa daraaddeed marka masaajidkii laga xidho bannaanku ma istaagayaan masaajidka hortiisa iyagoo waliba afkays wada saaraya oo sheekaysanaya sidaynu imikaba ku arkayno oo daayartii laga fasaxay dugsiyada laftigooda garoomadan iyo bannaanadan ay ku ciyaarayaan. markaa xidhidii masjidka wax badan ay kama soo kordhin. arrinta saddexaad ay markaa sababta ka dhigayaa waxa weeye weli qaadkii baa soconaya bay dhaah. waa siday dadku ku doodayaan qaadkii ayaa soconaya oo dee cudurradii xambaarsan. markaa haddii dee guddidu ay sheegtay qaadkii inay ka xishoodeen dee masaajidana ha laga xishoodo. taana way ku dareen 3daas sababood. markaa culimadu dee idinkuna ha soo horkicinaya bal cagta u dhiga. sababaha ay dadku sheegeen kadib iyo hadalkaa soo noqnoqdeen marbana lagu soo yaro buuqayo waxay noqotay inaanu guddida istifsaar weydiino ama aanu qodobadii la soo saarayna dib loo eego iyo culimadii guddida ay kulmeen tala soo jeedintoodii. marka siday arrinkii u fasireen culimadaa hore iyo guddiduba waxay noqotay inay soo jeedinahayd oo dadka iyadoo dee loo naxayo oo badbaadadooda laga fikirayo in ay u taallo tala soo jeedin oo askari iyo dee masaajidkii ciidan loo dirayo la xidhaya aanu jirine laakiin dadka lagula talinayo si ay u nabad galaan culayska masaajidada in laga yareeyo. oo dad badan baa ruqsad haysta oo masaajidkii ka maqnaan kara sida caruurtii, dumarkii, qofkii musaafirka ahaa iyo odayaashii ama dadkii xanuunkan uga nuglaa. dadkaasi inay culayska masaajidka yareeyaan oo halkii cadad badan uu ku soo ururayay cadadkii yaraado. markaa tala soo jeedintayadu saasay ahayd baa markaa guddida xubnihii u muhiimsanaa ay noogu fasireen. sidoo kale dee dadweynahana waa inagan arkayno gaadiidkii dadweynaha waa la fududeeyey oo kala barh baa laga dhigay. marka fudaydkaasunba arrintu ay ku soo ururaysaa inay dadku sidaa u fahmaan ayaa iyaduna aada u muhiima. markaa dee haddii xaaladdu kalifto oo arrinku uu sii xumaado daniba way odhan doontaa laakiin inta ka horeeya xaalku waa caynkaa weeye. markan taa ka soo gudbo arrintaa iyo sixiddeeda iyo baraarujinteeda si deganaanshahaasi u yimaado oo isku waxuun baynu doonaynaa aan qalad loo fahmin. waxaan raacin lahaa markaa waxyaabaha laynaga doonayo. waxyaabaha laynaga doonayaa waxa weeye inaynu qaadanno tilmaamaha layna siinayo ama guddida ha ahaato ama aqoon-yahanka iyo dhakhaatiirta ha ahaato ciddii macluumaad haysa. tilmaantu innagay dan inoo tahay marka inaynu ka faa'iidaysanno. guddidana khayrlaasiya dee waxay nooga muuqanaya dadaal badan ay samaynayaan oo marba macluumaadkii ay nala socodsiinayaan. Idruus Maxamed Caynaan Goobjoog Hargeysa.